gudoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqul insaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Xildhibaan Nuur Siidow ayaa ku baaqay in gurmad la gaarsiiyo shacabkii reer Koonfur Galbeed ee sida arxan darrada ah looga soo barakiciyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ee deegaanada Somaliland. Gudoomiyaha oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Baraawe ee xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in si aan waafaqsanayn xeerka caalamiga ah ee lagu saxiixay magaalada Geneva 1949kii ay Somaliland ula dhaqantay shacabka ay ka soo barakicisay magaalada Laascaanood. waxaana uu sheegay in sidaas oo kale ay xadgudub ku tahay heshiiskii Roma ee maxkamadda dambiyada adduunka. dhinaca kale gudoomiyaha ayaa tilmaamay in halkaasi aysan ka jirin siyaasad lagu wajaho shacabka muwaadiniinta ah ee xuquuqda ku leh dalka, taasina dhibaato ay ku tahay shacabka Somaliland. in qof Soomaaliyeed isla Soomaaliya dhexdeeda ah lagu soo barakiciyo waxay kaloo xadgudub ku tahay qodobka 49aad ee heshiiskii Geneva 1949kii in dad shacab ah la barakiciyo. waxay kaloo xadgudub ku tahay conventionska caalamiga ah ee ka jira adduunka. waxay kaloo xadgudub ku tahay heshiiskii Roma ee maxkamadda dambiyada adduunka. waxaan indhaha ku haynaa in reer Laascaanood oo aanay dhowrin xeerarkaas caalamiga ah ee muwaadiniinta degan dhulkooda iyo inay meeshu ka jirto siyaasad fashilantay oo tusaale ay u tahay burburka ka jira maamulka Somaliland. waxaan rabnaa ka guddi ahaan ka xildhibaan ahaan in shacabkaas masaakiinta ah oo dhiban loo istaago, loo gargaaro, lana kaalmeeyo. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso. kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.